taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jenaraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo la hadlay warbaahinta Koonfur Galbeed sheegay in Al-Shabaab deegaano ku tirsan Koonfur Galbeed jabhooga iyo kajeesidan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed way baadhinaga kale oo sheegay in dhawaanya bilaaw doonaan howlgallo la kafaro wadada Hiiryaas Baydhabo iyo Muqdisho si kooxda nabadeedka Al-Shabaab ku sifaylay guud ahaan dalka Soomaaliya way basaasaata oo taliyaha bulshada suuqooda intii ciidamada garabsiyan waxaan kale ku guuleysanay inaan tababarno noocyada ciidamada kala duwan sida isgaarsiinta logistikada sanacada taasoo aan rabno inaan horumarino khibradda aqooneed ee ciidanka si ay u gutaan waajibaadkooda qaran waxaan kale ku tala jirnaa inaan guud ahaanba recruitment cusub aan ku sameeyno ama tababar cusub aan ku sameeyno ciidankeena guud ahaanba qaybta si ay u gutaan waajibaadkooda qaran haday ahaan lahayd difaaca dalka iyo dadka oo ay ugu muhiimsan tahay iyo sidii ay wadooyinka xiran manhayaasha Al-Shabaab ay go'doomiyeen ugu saari lahaayeen meelaha ay muddada dheer ay shacabku caburinta ay ku hayeen sida daraadeed waxaan dardar gelinaynaa guud ahaanba waxqabadka qaybta si loo gaaro hadafka ah in shakhsi kasta ee Soomaaliyeed u maro wadooyinka si xur ah u ganacsadaan waxbarashadooda free ay u noqoto isla markaasna ay ummadda u hesho kalsooni iyo isku dhex socod iyo ganacsi sidii guud ahaan dalkeena lagu yaqaanay marka wax kasta oo caqabad ah way jiri karaan laakiin waxaan aaminsanahay inaan u dhabar adeegi doono dhinac kasta hawl kasto la qabanayo waa macquul ama mar kastaba waxa jiri kara caqabado ka hor iman kara taasna horey baan ugu talagalnay inaan ka talaabsano ayaan ku tala jirnaa hawsheenu aad bay u fiican tahay isku xirka qaybta min Bakool ilaa iyo Baraawe aad bay u fiican tahay wada shaqayn fiican ayaa ka jirta qaybta dhexdeeda sidaad la socoto weerarkii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab ku soo qaadaan Buurey Haraw jab weyn baa ayaa soo gaaray mana filayo dhawaamahan inay soo hunguriyeen doonaan waxaan kale ku tala jirnaa inaan furno wadada dheer ee isku xirta Baydhabo ilaa iyo Muqdisho taasoo qorshaheeda aan ku guda jirno dhawaana aad arki doontaan insha Allah Faisal Dhaay Hussein Raadi Television Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo